Tartan adag oo u dhexeeyay dowladaha Jabuuti iyo Kenya ujeedkiisuna oo ahaa hanashada kursiga aan joogtada ahayn ee Golaha Ammaanka ay Afrika ku leedahay, ayaa natiijo la'aan ku soo idlaaday kadib markii labada dalba ay gaari waayeen yoolkii guusha oo ahayd 128 cod. Kenya ayaa heshay 113 cod halka Jabuutina ay gaartay 78 cod, taasi oo ka dhigan in labada dalba ay sareeyeen guushii ay ku hanan lahaayeen kursiga aan joogtada ahayn ee Afrika ku leedahay Qaramada Midoobay. Natiijadaasi soo baxday ayaa waxa ay ka dhigan tahay in maanta oo Khamiis mar kale labada dal tartan adag ay fooda isdari doonaan, waxaana haatan ka socdo magaalada New York ee Qaramada Midoobay xarunta u ah ololo labada dal ay wadaan. Haddii labada dal midkood uu ku guul dareysto inuu helo 128 cod, waxaa dhici karta in loo gudbo tartanka wajiga saddexaad. Haddiise ay isku mari waayaan tartanka wajigiisa saddexaad, waxaa dhici karta in la furo tartanka oo wadamo hor leh oo Afrikaan ah ay qayb ka noqdaan tartanka si loogu kala adkaado cod dheeri. Balse diblomaasiyiinta aadka uga faalooda arrimaha siyaasadda ayaa qabo in laga badbaadi karo in tartankani ay ka soo qayb galaan wadamo kale oo Afrikaan ah haddii labada dal ay ku heshiiyaan. Heshiiska labada dal ayaa waxa uu noqon karaa in midkood uu ka haro tartanka iyo in muddo xileedka labada sanaha ay qaybsadaan oo dal waliba uu hayo sanad.